bacdii madoobeyd ee bulshadu ay ku adeegan jirtay kuna qaadan jirtay waxyaabaha kala duwan ee markaasi ay ku adeegtaan ayaa maalmihii ugu dambeeyey degmadani ceelbeeg gobolka Sanaag laga la'aa kadib markii dowladda Puntland Soomaaliya ay dhawaan baaq ka soo saartay oo bacdaasi ay sheegtay inayna ganacsadayaasha reer Puntland ayna soo rogin bacda madow ayaa bulshadu waxay ku qaadataa waxyaabaha ay markaasi ku adeeganayso uu ka mid yahay qaadka oo habeenkii kaliya ahaa intaas kun oo bacood lagu qaato qaadka kadibna dabada loo tuuro xooluhu iyo dadka iyo dunyada markaasi iyo waliba deegaanka ay u leedahay dhibaato aad u fara badan haddaba TV-ga caalamiga Somali News TV ayaa ka diyaariyay warbixintan bacda madow dhibaatada ay dadka u lahayd iyo waliba kiishkan haatan ganacsatadu ay bacdii madoobeed markii la waayay ay ugu bedeshay sida ay u arkaan waxaynu u mahadceliyeen dadka ganacsadayaasha ee bakhaarleyda iyo tukaamaleyda ah ee haatan kiishkan wax ku oolka u keenay waana kuwan iyagoo markaasi arrimahaasi ka hadlaya qadka wax lagu salamo waayo wadadaas ku laaban kartaa wada hore ma qaajirtay wala ku shaqada ditaas okay wixii dollar ku laaban jiray shaama loo goosan jiray oo shida hol ku laaban jiray laakiin baa ku dalka wada waan hatta qaraxa wax walba iyaga lagu sameeyo imaka dalka way ka baxaan bal arinta ka waran alxamdulillah rabbil alamin hadii la waayaha laakiin wala waan hadda soo bedbedelayaan nooc kale ay keenayaan بعد ذاتك بدلي بعدي نعيريسي حوله عنين بيرك أيوم مدعيك كجد دكتي أبار لبعض نقول نقطي ذاتك بعد نسمي مريها راشين كلاقو قاتو أما دنتي لو بهاي بلاقو قاتو مهد بانو علينيا مهد كل مهدود بانو علينينا وانا صبوري وحانو لنا وادل وانا سن وها عروسه وقشان ما من وراده وها اسكو مروريسا وها خورو عنان iyada ba isku marora dabadeedna neefki waa la garan waaya waxyaba waxa ay caloosha duwan waan lagu dhintaa hawsha ilaahay baa shaqada aan laakiin waxaanu jecelahay teeda madow waan soo dhaweynaa imika bacdi gacanta ku sita waa tuurayaan hadda tuuray waa aniga tuuray saakan tuuray warkeedana saakan helo marka maxaad ku bedelaysaa waxaan ku bedelaynaa wixii hadii dhaqanka ahaa oo la isticmaali jiray baan jecelahay in la siiyo maradaas la yiri baa tibi aad baan ugu soo dhaweynaa marada nooga fiican oo noo dhaaf bacdaana aad ka waran dhirta maxay u lahayd dhibaato inta lagu lahayd dhirta markay isku marto bacda madow dhirta markay isku marto dhirtu waa qalashaa waa qalali jirtay geedka ay ku maranto waa qalalaa xoolaha cunaana waxa weeye caloosha iskaga duubtaa waxyeelo weyn bay u tahay waa ku dhamaadeen annagana waxa weeye waxbaan ugu saqaajay laakiin amriga kala dilaacda khayr nooba leenta le bacda madow hadii la suro ama ay ku dhacdo laantiisa waa qalajisa way qalajisa neefka ee xoolaha ana caloosha ayay gashaa waxay qabataa waxa uu quudanayo oo cunayo bay ururisaa calooshiisa neefka wax ma tagaan waa dilaawe ganacsatada ku nool magaalada ceelbeeg gobolka Sanaag ayaa bulshada ugu baaqay kiishkan haatan ay u keeneen ee bacdi madoobeed bedelay markii la waayay in ay ka faa'iideystaan kuna adeegtaan dhulka iyo deegaankana markaasi nafac weyn u leh hase ahaatee bacda madow baa ugu sii darayd maanta alxamdulillah waxaanu helnay warshada soo saartay alaabtan aad arkaysaan oo ah alaab bacdii lagaga raystay oo kana tayo fiican oo ma sha Allah maxaan u maleynayaa inay halka aad ka qaadan jirtay markii aad ka qaadan jirtay 6 bacood ama 7 bacood inay tari ku balkeenayso waqti dheer ba ka badanba faa'iido badanna way u keentay ummaduna aad bay hadda u qaadataa iyadoo faa'iido weyn laga helay hadii xitaa ay dilaacdo haddaad banka ku tuurto ama aad meel geyso waa wax gubmaysa ama si qashinka raaci karaysa tii hore duubo bacda madoobeed ayaa waxay markaasi dhibaato ay ku haysatay xoolaha ay Soomaalidu ay dhaqato iyo waliba dhirta oo markaasi ay nabad guuriso waxayna ka mid tahay fayadhowrka daran ee ka jira deegaamada ay degto gobolada Puntland Soomaaliya oo dhan
waxaana maanta aan ku soo wareegay suuqyada kala duwan ee degmadan ceelbe gobolkan sanaag waxaana ka waayay bacdii markaasi maalmahan ugu dambeeyey lala'aa hal dukaan oo keliya ayaan ku arkay maanta lagaga adeeganayo balse dukaamada inta kale waxaa lagaga adeeganayay kiishkaasi haatan ganacsadayaasha degmadan ceelbu ay keeneen waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur telefishinka caalamiga Soomaali News TV degmada ceelbu ee gobolka Sanaag.